kulantii waxaana wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkii Waayarag. barnaamijka Waayarag haddii aad doonaysa inaad kasoo qayb gashaan daawadayaal waxaad igala soo xiriiri kartaan emailka saa u wareeganayo waa suga@sntv.gov.so. barnaamijka Waayarag waxaa marti inooga caawa Maxamed Ibrahim oo ku magac dheer Maxamed Oroma ee degan magaaladan London galbeedka. waa nin dhalinyaro ah يعني هولا كلا دوان سوق قبتي إسقى أيان عاوة كورة يسرينا برنامج ويارك فضلا برنامج ويارك سوق يبقى سببته وبرنامج سكر حري وبرنامج كي أين سكوب برانيني وبرنامج كي أين وحقوق قبلهين دتك أنا كنا حقوق قبلهين برنامج كان وحال الكل جيس وحويان يعني وفائدة كفائدة سو فضلا ومناسبة ذهبية ويان برنامجك محمد إبراهيم محمد أروما كسلوا برنامجك ويارك ومحسنتين وعدوهي برنامجك هو برنامج عاد قيمة بدن وعاد فائدة له بالشدة الصومالية ملك استيجوا عن دونك وحن عاد معناها عن وقفر أحسن حمانتنا إن كنقضة قيب كمدة برنامجك ويارك واسوقي ومرنا عن صاحبنا هاي إن شاء الله هذا أو ما حسنت هاي سودا وين هذا واتهي محمد أوروما قلبات كلندن جود هان باللوجا قرنيا لكن وحلوجا قرنيا دي باينو كسو شاقدنا بالمركو هر وحينو برنينا محمد كهل نهار فردية ماشي وكسو بالله وحبرشديسي صوماليا دوكسيسي أو دوكسيسي سرة كبعد إلا أين أسلق قارنو galbeedka London markii oo yimid iyo waxyaabihii kala farax badnaa oo marka lahaa lafihiisa iyo jaaliyadaba uu qabtay maxamed ka warar marka Soomaaliya intii aad joogtay haddaan ka bilaabo Soomaaliya markii aan joogay xilligii dagaaladii waxaan dugsiga dhexe ka baxay 8 Maajo Yaaqshiid ku yaala waxaan u gudbay dugsiga sare ee Sakhaawadiin nasiib daro waxa dagaaladii sokeeye ayaa igu dhacay xilligii anigoo ah form 2 markaa waxaan bilaabay inaan fikiro inaan markiiba aan kasoo dhaqaajiyo dagaalka sokeeye haddii kale mar haddaad dhalinyaro tahay waxay noqonaysaa ama inaad qoray qaadid ama aad isaga soo carartid marka waxaan door biday inaan isaga soo tago iyadoo dagaalku u socday isbuuc waxaan ka soo raacay gaari magaalada xaafadda Bakaaraha ilaa iyo Ethiopia aan 7 cisho soo socday 7 cisho baad soo socotay 7 cisho ayaan u soo socday ma lugaynaysa baabuur baad saarnayd intaa waxaan saarnaa gaari weyn ayaan saarnaa intaa ومركان أمر الله مركي أنا يمد وحن كسود جي مجالة اللي يراهدو دولو وعن شو جي مدبلة كدب وحن وصو إن جود بي مجالة وين أديس أبابا وحن شو جي سنة وحن سكود دي إنن ولا جيبه وحن جعلنا إن هالكن إمادو إيش هذا أن شوجو ونصيبكيgu noqday Ingiriiska mar walba waxa ahayd xami aan ku xaminayo inaan imaado waxa ay suurta gashay aakhirkii inaan imaado laakiin waxaan ku horeeyay Asmara Yemen baan sanad joogay oo ka tagay Sacuudiga aan tagay dhowr bilood baan joogay ilaa 9 bilood oo ku soo noqday Addis Ababa nasiib wanaag waxaan ka soo dhoofay Addis Ababa 1990 iyo أفرتي وحن إمي جرمالك كوني سقال بقول سقاشتي أفرتي وقت نفط أرد بيكوجا من تاويان مرك أرد بس كبحوي سأقول اللي يراه من أديس أبابا من مقديشو إلى إثيوبيا إلى إريتريا هذا سعودي بات كن نقطة إثيوبيا بات كن نقطة هذا إثيوبيا كن نقطة وقت مرك أنا جو إصلاح ماشي وفضت عاد كله فكرته ما أنت عاد يوروب كتير كرته وإثيوبيا برتلمامات كادو هو هاي مرك محمدو
ilaahu Yurub yaa ku geeyay ka ahayd waagaas markii hore mar walba waxaan laba arin baan aad mar walba aan maskaxda ugu hayn jiray what inaan ama Ingiriiska tago khaasatan Ingiriiska ama aan Mareykanka tago waayo markaan Soomaaliya joogay dugsiga sare markaan dhiganay dugsiga dhexe xataa markaan dhiganay luqadda Englishka xagaasan ku bartay okay oo scuola privata private school scuola privata waa private schools-kii no iyo typing English language Oxford baa laga bari jiray bogeera hayina ay ku qoray wax actually no iyo iskuuladii la oran jiray Halima private school laakiin aniga intaba ma tagin laakiin waxaan wax ka bartay iskuul la yiraahdo First July School of Language wuxuu ku yaalay Hotel Tawfiq gadaashiisa dabadiisu ku yaalay kor monopoly markii la aado Hotel Tawfiq gadaashiisa ku yaalay First July School of Language First July School of Language waxaa dhigi jiray macallimiin Swedish iyo Mareykan isku jira haye meeshaasaan ka bilaabay luqadda inaan Ingiriis ku barto laakiin waxaan marnaba ilaaweynin oo aan aad u xusayaa nin oday ah xaafadeena degnaa Englishka isaga ay bilaabay ABCD waxaa la dhihi jiray Ismaaciil Gabayre oo xaafadeyda degnaa Allah ha naxariisto dhintay Jarmal Allah ya rahma ilaahay jannada ka waraabiyo ninkii wax ku baray ninkii xaraf ku baro yani waxbuu ku baray ninkii ku dilana waa ku dilay naartu kale isagana waata marka Ingiriiska baa ku bilawnay marka waagii hore marka Soomaalida dadkan joogay waa xasuustaa dadka way aad u jeclaa jireen markii aflaamta aynu galno cinema mission iyo cinema Algaab iyo Banaadir iyo Cafe National wax xasuustaa markaan aragno Europe basaska isdul saaran oo double decker basiska iyo ba noloshaas iyo dadka qaaca afka ka baxayo inay sagaar ay cabiyaan baan oran jiray ma xasuustaa horta exactly waxaan Europe ilaahu yaana geeyo qof walba saas ku hamin jiray marka hadda waxa qudhaada waxa tiri marka erga tiri waliga waxaan jeclaa inaan Europe ama America labada mid inaan taga baa tiri mar hadii aan qurbaha aan imi waxaan priority ugu horeysay waxay ahayd mudnaanta koowaad Ingiriiska ama Mareykanka laakiin inta aan dagaaladu dhicin runtii waxaan u haystay Soomaaliya meel aan ku doorsan karo ma jirto marnaba isma lahayn maskaxdayda kuma soo dhicin Europe baa tagaysaa laakiin waxa ku soo dhici jirtay ama la ii maaragtay qorsheyn jiray inaan Masar wax ku soo barto aabahay Masar wax ku soo barto ama India labada mid inaan markaan ka baxo dugsiga sare waata bal inanka dhalinyarada ee 20 sano ka hor wixii uu ku hamin jiray iyo wixii uu ku riyooyinkiisii iyo bal meesha ku dambeyn doona iyo bal aynu aragno waata goormaad soo gashay marka Europe halkeed ka soo bilowday Europe marka waxaan ka soo bilaabay sidaan markii horeba ku sheegay Jarmalka oo aan 20 cisho ku dhawaad aan airportka ku xirnaa xataa Jarmalka oo ay iga shakiyeen 20ka cisho waxa la igu hayay waxaan ku hadlayay American accent oo Ingiriis xiligaas American iska dhageysan American accent because Somalia markii aan joognay waxaan ku wax ku baranay American accent waata private school ka dhigan jirnay waata 16 cisho markii ay hayeen waxay yiraahdeen waxa ka timi Mareykanka Soomaaliya kamaad iman ismana dhiibaysid passport Ethiopian nawate waata marka waxay yiraahdeen adigu waxa ka timi Mareykanka war anigu Mareykanka waligay ma arag kamana iman laakiin Mareykanka timi waayo accent-kaaga waa Mareykan turjubaan ma kugu yarnaa maya baan ku yiri turjubaan uma baahni markaas ay iga shakiyeen marnaba isma oran wuxuu ka yimi Soomaaliya waata warba ajaayib marka waxaad Jarmalka waa ka soo tagtay marka Jarmalka marka aan ka soo tagay waxaan imi Holland dalka Holland oo aan sanad iyo adiga 2 sano ku dhawaad aan joogay Holland anigoo mar walba targetkaygu ahaa inaan imaado dalka Ingiriiska way laakiin sababta maxay tahay sidaan mar horeba aan u xusay luqadii oo ii sahlaysa inaan degdeg ula qabsado iyo waxbarasho hadii ay suurtagal tahay iyo mar walba inaan access luqadeed oo aan jeclaa hobigayga ay tahay inaan kaga faa'iideysto waa mumkin waata marka 2 sano aad joogtay Holland Dutchki ma baratay af Holland Dutchki waan bartay Dutchki waayo waa
waa ii fudud yahay mar haddaad luqad ingiriiska taqaanid ha mar haddaad luqad af ingiriiska iyo dutchka waa language sisters baa la isku yiraahdaa jarmalka iyo kulli waa isla dhasheen waa tahay absolutely marka 2 sano baad joogtay 2 sano ku dhawaadaan joogay waa ka soo tagay waxaan halkan imi ingiriiska 1996 1996 baad soo gashay waa tahay halkee baad ka bilowday marka luqa macallin baad tahay American accent baad ku hadlaysay ingiriiska xagga ka dhig markaad soo gashay durbadiiba society bulshada kugu cusub tahay deegaan iyo la qabsasho iyo wixii baad bilowday iyo absolutely maxaad samaysay marka markii ugu horeysay runtii waxaan markaad Soomaaliya ka timaado ama aad ka timaado dhul kale oo dhibaato kugu ah inaad ka shaqeyso kale normally waa dareemi kartaa qofka markuu yimaado qofna wuxuu ka bilaabaa waxa ugu adkaatay inaan horta waxbarashada ka bilaabo si aan u haqabtiro familka baahidooda qof walba waa arag soo fadhiisaa buu leeyahay shaqadii waxbarasho waxaan ka doorbaday baahida dhibaatada Soomaaliya taala qoyska cidii inaan gacanta qabto waa isku dayay inaan isku wado waxbarasho iyo mataqaana marka mar walba waan drop greenay waxbarasho markaan bilaabo waan drop greenay macnaha baahida ayaa ka awood badan waxbarashada mar walba opportunity-ga wuu jiraa inaan shaqooyin baad qabatay markaad timid maxaa kamid ah shaqooyinkii bilowga hore shaqana xalaal weeyaan waa ognahay wax laga xishoodo ma jiraan Soomaaliya wax ka xishoota shaqadii ugu horeysay ee aan ka qabtay wadankan waxay ahayd 3 week baan joogay markaan shaqo bilaabay waxaan bilaabay forno inaan ka shaqeeyo fornada rootiga sameeyay fornada rootiga waa nasiib wanaag waxaan ku aaday maalin ay lahaayeen open day oo ay recruiting sameynayeen dadka shaqaalaha la qoriyay shaqaalaha ay qorayeen waa waxa jira nin odaya oo laga yaabo inuu caawa idaawanayo ninkii asaga ugu horeeyay shaqa iqora ayuu ahaa waxa la yiraahdaa Axmed Yaasiin fornada wuxuu ka ahaa markaa manager markii interview iga qaaday buu ila hadlay marka wuxuu yiri af ingiriisiga waa ku hadli kartaa Soomaaliya markaas waxaan ku yiraahdaa interview-ga waa af ingiriisi iga qaad waa caadi marka interview-gii af ingiriisi iga qaaday marka wuxuu yiri fantastic sidii buu ii gudbiyay marka sidii baan ku bilaabay inaan meesha ka shaqeeyo wax ka shaqeynay ilaa 4 sano ku dhawaad 4 sano inta fornada ka shaqeynaysay wax activities kale ee waxbarasho iyo waxyaabaha ay ma gashay waan galay waxyaabo waxaan galay waxbarashaan galay college aan galay waa drop grade waxaan bilaabay semester koowaad oo aan drop grade haddana waa isku wadi waayay laakiin at the end waxaan bilaabay gaariga inaan barto gaariga baabuur wado inaad barato baabuurka inaan barto oo qaadato license driving waa tahay waa waxa kaliya first title-ka ugu horeeya oo wadankan markaa timaada markaa dhalinyarada tahay aad ku bilaabaysid inaad samayso inaad license qaadato marka qaadashada license dalkan ama patenta la yiraahdo in Italiano Soomaali patenta aan dhihi jirnay license xagga laga yiraahdo waqooyiga marka qaadashadiisa marka ka waran marka dib soo ma ahayn ma sahlanayd waagaas aad bay u sahlanayd waayo xilli waxaan ku soo aadnay annaga dawladda ay bixin jirtay fan ay ku tababarayso qofkii hataa from car driving to bus driving marka fankaas ayaan ka faa'iidaystay oo ku soo aaday inaan mataqaanaa aan sameeyo gaariga inaan barto gaarigii ninkii barayay nasiib wanaag ayaa markuu isiiyay 40 saacadood wuxuu xataa skillka aan ku wada dhaqmayno wuxuu xataa tala ahaan igu siiyay Maxamed markaad gaariga qaadato ha ilaawin inaad macallin noqoto taasaba heersan markaad gaariga qaadato ha ilaawin inaad macallin noqoto markaas waxaan ku yiri why maxaad ku tiri anigoo arday ah hadda gaariga baranaya wala daala dhacaya gaariga inaan wado maxaa igula talisay inaan macallin noqdo markaas wuxuu yiri waxaad leedahay wax la yiraahdo
skill management ha intii aan ku baray macnaha wuxuu ka wadaa skill management macnaha intii hadda aan ku baray ayaad hergelinaysaa macnaha ama aad macnaha dardar gelinaysaa dardar gelinaysaa xirfadii lagu baro ayaad horay maamul sideedii u soo bandhigaysaa waa tahay macallin baad marka imtixaanka waa baastay imtixaanka waa baastay gaarigeer marka hadalkiisii baa igu taagnaa oo aan waxaan sugi kari waayeysnaa in aan 3 sano ee hore ay dhamaato si aan macallinnimo aan markaad qaadato laysanka waa 3 sano sugtid waa inuu 3 sano qofka sugaa haddii uu doonayo macallin inuu ku noqdaa iskoola guida ama driving schoolka driving instructor waa tahay 3 sanaad ku dhamaatay waxaad noqotay marka macallin gawaarida yaryar bara imtixaan kale aad gashay marka si aad u noqoto sar balaas maxaa la yidhaahdaa driving instructor gashay ko baabuur adiga leedahay miyaad marka macallin ku noqotay mase company waxba aad u shaqaysay actually maya company uma shaqaynin company marka aniga aan macallinnimada noqdayba company aniga aan leeyahay ayaan furayba aad ba hore ka furtay ana furay waxa la dhihi jiray iskuulkayga magaciisa waxa la oran jiray West London Driving School kolay cidii aragtay West London Driving School South Hall ayuu basekiisa ahaan jiray waa tahay marka aniga su'aalan soo waday aan ahayd su'aashaydu waxay ahayd runtii markii aad laysanka qaadatay maxaa kugu dhaliyay inaad noqotaa yani bare ama macallin bara dadka baabuurta sheegay waaweyn ama kuwa yaryarkaad ku horeysay su-aashiiba waaba iga jawaabtay waxaad tihi macallinkeedii ku barayay wuxuu ku yiri waxaad tahay macallin waxaad noqon doontaa weliba macallin aad u fiican saasay kugu marka taasaa kugu dhalisay miya hadalkiisii waan qiimeeyey waxaa fiican qofka haybadda kaaga leh hawsha aad ku hayo haddii uu kugu arko macallin nooc walbana way leedahay aniga laftirkayga dad badan baan dhiirigeliyey oo markaan macallin u noqday aan runtii ka helay skill managementigooda iyo qaabkaan isku weydaarsanayno waa tahay marka maxaa kugu dhaliyay marka adiga marka inaad noqoto instructor intaan galin macallinnimadii iskoolkii iyo wixii kii yaray bas instructor baad noqotay basaska waaweyn baad hadda macallin ka tahay laakiin guud ahaan maxaa kugu dhaliyay waxbaa qeyra baa ku gashay waxaan oran karaa su-aal aada u fiican waaye horta waxaa sideedaba aan ku enjoy gareeyaa ama aan ku raaxaystaa ama macnaha aan ku enjoy gareeyaa macnaha in aan qof dhan aan wax ka bedeli karo qof weel maran inaan wax ku shibi karo ku raaxaysataa ku enjoy gareeyaa qof inaan wax baro waa fikrad weyn weeyaan fikradda philosophically exactly marmarka qaarkiis wax horta qofka mar haddii uu macallin noqday horay wax kaloo kale macallin ku noqday wax kasta oo kalena waa u fududaanaya marka mar walba waxaan jeclaa inaan qof skill aanu qabin aanu haysan inaad u soo saarto inaan u sameeyo waa wax aan ku enjoy gareeya mar walba laakiin taasaa igu dhalisay in aan dad inaan soo saaro Soomaalideeda maaragtay walaalaha warshado kale inaan mataqaana aan waxa aan maaragtay aan ku dhaamo xirfadda baan ku dhaamay wax kale kuma dhaamiye xirfadda aan ku dhaamo inaan xagga luqadana ka warreey Soomaali ahaantii markay macallin Soomaaliya iyo markii waa u soo noqon doonaa balka taasna waa laga yaabaa inay kugu dhalisay xataa istiri war dadkan maaragtay afka aan si fiican u fahmaynin qaarkood oo yani gaaladii dad kale ajnabiinta u tagaan يعني كنا قنيس في إنجليز كمركي وادي كسريان جهوينكي باور بردي وحي دد بدن سومالي كوات كتاس نوال لقيا باني حتى كوكو دالسي ويجرتا نفس الديده ويجرتا تاسنا ويجرتا ووحجرة ويجرتا إن ما تقانا إن عقبت لقدد إجرتو ساكا لكن وحكمهم سن حتى قفك إساقو لقد يقانا إن كفلا waxaa macnaha uu kaga bogan karaa ama kaga macnaha comfort san yahay in uu qof luqadiisa ku hadlaaya ay wada entertain gareeyaan isagoo wax baranayana
laakiin markuu qofka waddan kale ka yimaado waxaad dareemaysaa waa diiqadoonaysaa in yar waa tahay maxamed oroma west london oo caan ka yahay waad daawanaysaan daawadayaal dad badan oo soo saaray warshad waa macallin weeyaan qudhiisa laakiin macallin ah sida basaska waaweyn loo wado hadda ku jira baabuurtii yareed waad ka soo tagtay basaska waaweyn bus driver ayaa tahay hadda macallin iskuulka barashada baabuurta yani bal ka waran bus driver bus driver waa xirfad gaar ah dabcan soomaalida degan london ama UK inta badan waxa ay mataqaanaa ay wadaan waa bus driver Soomaali badan baa wada Soomaali aad u badan baa wada number aad u badan runtii waa wax macnaha la dhihi karo horumar inay macnaha shaqaystaan xirfad ay ku shaqaystaanna haysta xirfad aan mataqaanaa hooseyninna ah xirfad macnaha fiican oo qofka ku amaanan yahay inuu shaqo macnaha xalaalna shaqaysta xirfad oo income fiican u lehna way tahay muxuu baab ka war marka dadka barta ama qofka doonaya yani inuu noqdo macallin bus driver halkee buu ka bilaabaya waxa ka wada bus driver inuu noqdo qofka raba inuu noqdo bus driver wuxuu ka bilaabayaa stage ayaa jira sida gaariga yar oo kale la soo maro gaariga yar markuu rabo inuu qofka noqdo baabur inuu rabo barto wuxuu ka bilaabaa professional license wax la yiraahdo kanna waa sidiisii oo kale waxaa la mataqaanaa la dalbayaa professional license wuxuu marayaa caafimaad marka hore qofka caafimaadka markuu maro caafimaadku wuxuu ku cost gareyn doonaa £50 qiimo gaaraya ayaad bixinaysaa si aad yani u gasho caafimaadka caafimaadka markii la leeyahay waxaa laga test gareynaya indhaha iyo wax yaroo dhiiga laga qaadayo marka dhakhtar Soomaali ayaa jooga hays oo aan ku xiraa dadkii u baahan inay macnaha caafimaadka maraan marka hore professional license ugu soo baxo kadibna waxay bilaabaan inay theory-ga bartaan kadibna halkaa waxay ku sameyn doonaan practical test oo aniga aan sameeyo practical testiga ayaan u sameyn doonaa si ilaa heer imtixaan ay gaaraan marka ka war ardayda aad hadda wax Soomaali baa u badan Soomaali ardayda aad wax barto xagga bas Soomaali ayaa u badan ayaga u badan marka imisaba marka aad leedahay duruusta maxay bartaan marka maxaa lagu bartaa bus driver ما theory and practice miya tijaabi iyo aragti baa lagu yiraahdaa Soomaaliga hal akhrinay geedkii la wadaya labadaba waa sameynaa khaasatan practicalka oo aniga aan iqoseeya practicalkii oo ah drivingkii wadida baabuur taas aad ka dhistaa dadka taas ayaan ka dhisaa ilaa heer imtixaan imtixaankana waan dalbaa sidaas ayaana mataqaanaa imtixaan ku geeyaa sidaas ayayna kusoo gudbaan waxa weeyaan waa shaqo maanta loo batay dhalinyaradii oo markii meeshii waa aan islahay jaamacad waxbaa duruufaa keena waad la sheegtay bus driver wax markuu noqonay ciyaar maaha marka bus driver naftiisa waa ogtahay ninka London bus ku wada waa stressful weeyaan waa buuqiisa badan madax xanuunkiisa badan orodkiisa badan waa shaqo gooni ah weeyaan okay marka ka war marka imisa saacadood baa ku filan qofka uu ku baasi karaa imtixaanka bus driver markii laga bilaabo maalintuu bilaabayo ugu horeyso ilaa maalinta uu joojinayo imtixaanka baad u dalbaysaa marka ka war arrinta su'aal aad u qiimo badan weeyaan inta badan horta su'aashaas waa su'aal dadku ay ka siman yihiin qof walba oo baska raba inuu barto markuu soo garaaco su'aasha ugu horeyso uu weydiinayo waxay tahay imisa igu filaanaysa lacagtii cashar ama lacagtii taa wax la qiimeyn kara ma aha bini aadamku waa kala duwan yihiin waa kala mataqaanaa maskax badan yihiin waa kala caqli badan yihiin waa kala dareen badan yihiin waa kala qaadasho og yihiin marka dadku isku mid maaha laakiin waxaan ku sameeyaa wax la yiraahdo practical assessment waxaan ka qaadaa assessment
dhinac kasta ah waa qiimeynaysa ha waa qiimeyn guud baad qiimeynaya ku qiimeyn samaynaysaa guud ayaan ku sameynaya Waa tahay. qof markaan qiimeyn guud ku sameeyo waxaan markuu dhamaado qiimeynta guud waxaan u sheegayaa inta ku baxaysa inta maalmood uu training u baahan yahay inta budget qiimo ahaan lacag ahaanna ku bixi doontana markaasaan u sheegaa u sheegtay waa tahay ma xuma imisa arday ayaa ka baxday dugsiga gabdhihii wiilal isku dar Waa waxaad xasuusato intii sanadood macallin ka ahayd meeqaa dhacday meeqaa baastay waa su-aal aada u qiimo badan horta inta dhacday ama inta baastay waa horta adiga dareemi ma ogaan kartaa. kartaa adiga Waa- waa kaa tagaan ma u buug garaysa imtixaanka maad u dalabtaa ama igaa dalbada ama anaa u dalba adaad u dalba Anaa u dalba. maalintay baska galayaan miyaad la socotaa imtixaankay galayaan maalinta ay baska imtixaanka galayaan anaa geeyahaa waa adaa geynaya meesha Anaa geynaya. imisaa baastay imisaa dhacday marka gabdhihii wiil gabdho horta maba jiraan aan u malaynaya gabdho way jiraan gabdho way jiraan laba iyo saddex meelaha maya qiyaastii gabdhaha aan baray basaska waxaa laga yaabaa caawa inay daawanayaan qaarkood hay waaba aad baan u jeclahay caawa inayna daawanayaan Waa tahay. waxaan qiyaasayaa numberka haddaan roughly qiyaaso ama minimum kasoo qaado waxaan qiyaasayaa ilaa 16 hablood oo Soomaaliya inaan baray gaariga baska ilaa 16 hablood oo Soomaaliya ee London degan baska aan aad baray bartay baska sida loo kaxeeyo imtixaan ay ku galeen imisa baa ka baastay kulligood way baaseen kulli way baastay Kulli way gudbeen. wiilasha ka war wiilasha waa dareemi kartaa numberka 16 markuu yahay dumarka wiilashana waa iska 300 wey waa exactly waa over 390 300 oo kuna Waa- ana oo doo sax. iska lahay ka war Maya, ma sax. ogeyn laakiin roughly ha 390 oo gaaraya meeqa baastay meeqa dhacday roughly all of them way baaseen waa tahay oo waanan dhageysanayn hadda waa laga yaabaa 90% nin waxaan okay ma xuma ka waran marka ma jiraan macallimiin kale ay sheeg baska dadka barta Soomaali adoo kale ah bas waxaad ku tahay macallinka kii ugu hor keligii ah uguna horeeyay wax ka dambeynaysa aysan jirin waa su-aal aada u qiimo badan runtii inta aan aniga ogahay ama aan ogahay ama garaadkaygu tilmaamayo macallinkii ugu horeeyey ee Soomaali ah ee baska training siiya ayaan jecelahay inaan ahay khaasatan West London galbeedka haddii ay jiraanna dabcan waa maqli lahayn ama contact baan yeelan lahayn ilaa iyo hadda waxaa jira laba nin oo mataqaanaa mar dhow bilaabay iyagana oo company mid aan company hore u shaqayn jiray si aan kaga faa'iidaysto opportunity-ga hadda aad maanta i siisay fursadan hadda aad i siisay maanta waxaan u shaqayn jiray company la yiraahdo Baines Driving School Facebook yaala xayeysiinteeda dhowr sano ka hor way ka baxday Universal TV waxaa jira barnaamijyo badan oo aan qabtay oo aan fan gareeyey oo aan magacayga cusub aan dadka u sheegay magacayga cusub waxaa la yiraahdaa Easy Way Driving School hadda Easy Way Driving School waa wadada ugu sahlan wadada ugu sahlan ee lagu barto baabuurta Easy Way Driving School Easy Way Driving School hadda la yiraahdo good waa tahay iskuulkayga 2 sano ee barka ugu dambeeyay magaciisa saxda waa Easy Way Driving School waa tahay daawadayaal waad dhageysanaysaan waad daawanaysaan Maxamed Oroma Easy Way Driving School buu hadda soo u soo socday xamar waagu ka soo cararay ilaa wuxuu soo maray Ethiopia Eritrea meel walba Suudaan ayamaha Sacuudiga Ethiopia Holland Germany Ingiriiska يعني wuxuu ku haminay maanta waa maqlisan Soomaali badan buu dhisay oo kaalmeeyay maanta basas wada soo saar gabdhihii wiilal isugu jira hawl buu u qabta dadka walaalihii jaaliyada waa ka barnaamijku ay arag marka aan leenahay yani faa'iidooyinka u faa'iiday ka faa'iiday ama ka faa'iidayso u faa'iiday waa dhamaatay mucaaradan ahay kanaan ahay saasaan ahay looma baahno aynu waxaan wada dhisano aynu samaysano ka bacdi ahsaab ilaahay nagaasiin maalintii aan yeelanaan mucaarad iyo aan gali doonaa hadda wax ma hayno maxamed ka war marka gabagabadii barnaamijka maxaad jeceshahay maxaad u sheegaysaa maxaad kula talinaysaa dalkii maxaad u qaban kartaa maxaad yani Soomaalida halkan joogto kula talinaysaa xagga ma artay mashaariic kale ma kuwa maskaxdaada ma ku jiraan bal iyo arinta gabagabadii ka war aad su'aal aad u qiimo badan horta fursadan maxaa dalka
rabtaa inaad u qabato ama maxaa rabtaa inaad waa mid aan aad u macnaha ugu dream garaynayo ama ugu macnaha ugu riyoonayo in aan dalkii hooyo ku noqdo oo aan ka macnaha ka noqdo halkan meesha ay ka yiraahdaan DSA Driving Standard Agency macnaha xaggan inaan saasoo kale ka samayno hadda yani iskoola guida laga yiraahdo xagga mustaqbalka aan ka samayno basaskii gawaaridii kaliya ma aha ma doonayn inaan ku ekaado khaasatan anigu ma doonayn inaan ku ekaado inta waxa doonayn inaan wadanka aan horumar haday suurtagal tahay aan ka sameeyo infrastructure-ka design-ka waxa jirta maado la yiraahdo town planning oo aan jecelahay aan ku enjoy gareeyo oo aan rabo inaan mataqaanaa dhismaha magaalada weeyaan qorsheynta magaalada traffic light-yada zebra crossing-nada wax allaala wixii horumar ku saabsan oo wadooyinka ah oo ku saabsan wixii safety ama af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa ama safety macnaha ku saabsan amaanka yaad ka salaamaysaa halkan at the end of the day waxaan ka salaamayaa marka ugu horeyso waxaan aad ugu waa yaabsanta haddii ka salaamay marka kuuri dad badan ay kadis ku noqda barnaamijku ay arag waa iska ka kadinaya marka qaarkood mushkilo ma aha yaad ka salaamaysaa halkan waxaan halkan marka hore aan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ana abuuray opportunity-gana siiyey laba waxaan u mahad celinayaa waa suge siiyey fursadan qaaliga ah iyo TV-ga SNTV bahada SNTV waxaan kaloo halkan ka salaamayaa marka ugu horeysa familkayga xaaskayga caruurteyda kulli asxaabteyda meel kasta ay joogaan hadday daawanayaan hadday daawanayaan dadkan aan horey mataqaanaa macalinka u noqday iyo dadkii aniga macalin ii soo noqday intaba maasha allah daawadayaal kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim maxamed oroma West London easy way driving school waxaan rabaa inaan mid ku daro waa ku darsan kartaa intaan xiran hadday doonayaan inay ila soo xiriiraan qofkii doonaya ila soo xiriiro dabcan xayisiin kalena waan soo saari doonaa waan soo wadaa haddii ilaa yidhaahdo SNTV aan siin doona aan siin doona haddii ilaa yidhaahdo waxay igala soo xiriiri karaan nambarka 07931651243 ما شاء الله أطبق لي سنة ديال كاسي وها محمد إبراهيم محمد أوروما وست لندن معلنكي أجوري سوماليات وكع قيرودا مركو أركي رليرة فربضن يعني أجانبتي يعني أدل قادة ويقابك وحبريان امتحان دين كوباس واي فري يعني مالوين ويعني بصصك lagu baas imtixaanada ilaa uu gareeyo meesha asiga uu dalbo aan maanta halkan aan kaga faa'iideysanay waxaan doonaysaa soo kale inaad soo fadhiisataan barnaamijka waa arag haddii aad ma taqaanaa aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan waxa aad kala soo xiriiri kartaan waa suga@sntv.gov.so maxamed aad baad u mahadsan tahay farsamada waxaa iska leh cali aar xagga qurxinta ifinta iyo kaameradaba asna waxaan leenahay aad buu u mahadsan yahay tani intaan kulmi doona barnaamijkan oo kala ah sida iyo nabadgelyo